السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال إذن كيمبا meel walba waad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku faaqidi doono wixii ka soo baxay shirkii dhawaan lagu qabtay magaalada Istanbul ee cariga wadankaasi Turkiga isla markaana loogu magac daray Global Somali Diaspora Conference oo ay ka soo qayb galeen guud ahaan qurba joogta Soomaalida ee ku nool isla markaana sidoo kale ka soo qayb galeen rag xilal hore ka soo qabtay dowladihii Soomaaliya ee dalka soo maray barnaamijka jaaliyada Soomaalida ee dalka South Africa waxa uu ka qayb galay laba xubnood oo ka socday ama matalayay jaaliyada Soomaalida ee dalkan ku nool isla markaana labadaas xubnood waxay kala hayeen gudoomiyaha Safe Somali Community Yusuf Umar Ahmed oo caawa barnaamijka stuudiyaha TV-ga qaranka ee magaalada Cape Town ugu sugan iyo sidoo kale Cabdinaasir Ahmed Sheikh Bashiir Saxan Saxo oo asaguna ka socday Somali Journalists Association of South Africa ururka lagu magacaabo Sojasa waxayna labadaasi xubnood ay matalayeen Soomaalida ku nool dalkan Koonfur Afrika qaybeeda kala duwan barnaamijka caawa waxa idin daadinaya anigoo ah Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe waxa dhanka kaamirada gacaniga siinaya Geelle Axmed Siyaad barnaamijka waxa stuudiga caawa ay gula sugan Yusuf Umar Ahmed oo shirkaasi ka qayb galay isla markaana matalayay Soomaalida ku nool dalkan Koonfur Afrika Yusuf marka hore ku soo dhawow stuudiga TV-ga qaranka ee magaalada Cape Town waatay adiga mudan waxaan ugu horeyn bal inaad sharaxaad inaga siiso shirkaasi waxyaabaha looga hadlay faahfaahin guud inaga sii bal marka hore aad u mahadsan tahay marka hore waan kaga mahad celinayaa fursadan aad siiseen gaar ahaan telefishinka qaranka Soomaaliya marka xiga waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay Ramadaanul Kariim Ilaahay ha naga aqbalo cibaadada aan cibaadeysanayno bisha barakeysan haddii aan usoo gudbo marka shirkaas ka dhacay Turkiga oo loogu magac dilay Global Somali Diaspora ujeedadiisa waxa iska lahay walaalo Soomaaliyeed wuxuu ahaa shirkii labaad waxa jiray shirka horeeyay oo ka dhacay Sweden gaar ahaan magaalada madaxdiisa Stockholm waxa rag ayaa waxa ka fikireen oo fikirkaas iska lahay maadaama Soomaalida dunida ku fiirsan bal hadii la miday karo awoodooda iyo maskaxdooda iyo aqoontooda sida mushkilaadka haysto Soomaalida dunida ku kala nool iyo dadkii wadankii hooyo ku noolay saas daraadeed ay barnaamijkaas laba maalin ay uga socday Stockholm waxay doorbideen marka ay isku dayeen inay isu keenaan 100 xubnood oo dunida dacaladiisa ku kala nool wayna ku guuleysteen shirkaas wuxuu dhacay 22 iyo 22 bishii June marka aniga iyo Cabdinaasir Saxan Saxo ayaa waxa matalaynay wadanka Koonfur Afrika Soomaalida ku nool marka sidaas ayay ahaday watahay wad maasantahay shirka waxyaabaha looga hadlayo kale maxaad ka xusi kartaa oo markaas lagu soo hadal qaado waxa ugu muhiimsaneeday laba qodob qodobka koobaad wuxuu ahay in la helo dallad ay ku midaysan yihiin Soomaalida qurba joogta ah ee dunida ku kala nool si loo mideeyo wax qabadkooda qodobka labaadna wuxuu ahay in la isku dayo in la xog ururiyo dadka u dhaqdhaqaaqo Soomaalida hadii ahaa lahaayeen dhanka culimada hadii ahaa lahaayeen aqoon-yahaniinta hadii ahaa lahaayeen activistayaasha marka muhiimadda ugu weyn waxay ahaaday in la helo maamul ay iska leedahay Global Somali Diaspora watahay marka muhiimadda shirku marka loo eego dadka kala duwan ee ka qayb galayo kale waxa loo soo xushay dad maaragta mas'uuliin ah qaar qurba joogtii kala matalay qaybada kala duwan waxa ku jiray rag xilal hore ka soo qabtay dalka Soomaaliya dawladii ama maamuladii soo maray sidoo kale waxa jiray dad professor ah oo ama aqoon durugsan u leh dhinacyada laga hadlayo kale oo jaamacadaha dunida wax ka dhiga oo ayaguna shirka soo qayb galay marka waxaas leedahay muhiimadda intaas loo soo xushay maxay ku leekeed
xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa dadka meesha isugu yimiday waxay ahaayeen dad u bisil anna ay ka go-an tahay marxaladda maanta Soomaaliya ku sugan tahay in la isku dayo sidii uga bixi laheeday. waxaan ka xusi karaa Dictoraysa Maryan Qaasim oo aan aad u dareensanahay juhdiga ay ku bixisay inta ay mas'uuliyadda haysay oo xaqiiqatan hadalla aad dadka dareen ugu abuuray ka soo jeediyey iyo rag la mid ah iyo sidaba si la mid ah dumar kaleentood. marka waxay ahaaday oon isleeyahay jaaniskii ugu fiicnaay ay raggaasu oo walaalaha Soomaaliyeed ay curiyeen anna ay la qaybsadeen intii markaas Ilaahay waafajiyay ay isleeyihiin way ka go-an tahay inay contribution ku bixiyaan Soomaalinimada. waa tahay shirka waxaa kasoo qayb galay ama waxaa maalgelinayay dowladda Turkiga dabcan kaalimo badan ay ka geysatay dib u dhiska dalka oo sida hadda howlaha ay ka wado kale dalka gacan ay siinaysa dowladda Soomaaliya oo maaragta iskaashi badan ayaa ka dhaxeeya. marka maxaad is leedahay dowladda Turkiga shirkan way usoo qaban qaabaysay? waa ku mahadsan tahay. waxaan ognahay dowladda Turkiga juhdiga ugu badan ay ku bixisaa sidii Soomaaliya marxaladda ay maanta ku jirto ay uga bixi lahaday. marka waxaa kasoo qayb galay Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka iyo qaybta diasporaha nin madax ka ahay. marka waxay kaalintooda ugu muhiimsan ay ahaday maadaama ay wadankii as humanitarian ahaan ay u caawinayaan inay dadka qurbaha ku nool ay juhdi ku bixiyaan in la aruuriyo si Soomaaliya ay cagaheeda isugu istaagto. marka tusaalooyinka meesha ka dhashay waxaa kamid ahay oo ka hadleen qaybta diasporaha Turkiga Soomaaliya marxaladda ay ku sugan tahay maanta meel ka xun ayay gaartay wadanka Turkiga. marka sababihii hadda Ilaahay uu ku ilhaamiyana waxaa kamid ahaday dadka diasporaha oo dunida ku kala nool inay isu tageen ay juhdi badan ku bixiyeen sida ay mushkiladda ay markaas ku jiraan ay uga bixi lahaayeen. marka ujeedadaas waxay ahayd marka sababta lagu soo aadiyay in dadka Soomaaliyeed ee dibadaha ku nool oo ognahay maanta dhibaatada ku haysato caalamka dacaladiisa inay isku dayaan inay cashir ka qaataan walaalahood Turkiga. marka wayna ku mahadsan yihiin Ilaahay u jaaziyaan leeyahay. waa tahay maadaama dowladda Turkiga ay maalgelinaysa shirka isla markaana aan ognahay in kaalin badan ay dalka ku leedahay oo dib u dhiska dalka horumarka ay ka qayb qaadanayso shirkan oo ayada maaragtay qurbo joogtan u qabatay jaaliyadiina kala duwan oo ka kala yimid dunida dacaladeeda maadaama aad matalaysiin qurbo joogto kale waxaa jira waxyaabo qodob ah oo markaas idiin calaamadeysna oo shirka la tagteen oo maaragtay aad u gudbiseen ama maaragtay aad isku sheegteen inta shirka lagu jiray? ها way jirtaa qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahay maadaama dadka dibadda ku nool ay ku tiirsan yihiin dadkii gudaha jiray oo qof kasta oo Soomaaliyeed ee maanta daruufta ay ku kaliftay inay dibadda ku noolaato ana aysan ka maarmin dalka gudihiisa in la isku dayo in cilaaqaad sidii lagu abuuri lahay in maamul la helo dadka gudaha ku nool iyo dadka dibadda ku nool siday u wada shaqay lahaayeen. waxay kamid ahayd waxyaabaha bartilmaameedka ahay maxay waxaan ognahay dad badan oo Soomaaliyeed oo wanaaga jecel ayaa jiro oo qaarkood xataa sanadkii dhowr bilood ay wadanka ka tagaan haday ahaa lahaayeen qaybaha caafimaadka haday ahaa lahaayeen qaybaha waxbarashada. marka qaybaha kala duwan wadanku u baahan yahay social service-ka hadii marka ka soo qabo qofku ay ka tagto wadankan aan joogno kaleentood ana ay danaynayso inay dalkeeda wax u qabato inay hesho meel ku haboon ay qofkaas ku degi karto maalmaha ay wadanka joogaydo amba ay ugu talagashay ay qorsheysatay inay uga faa'iideyso dadkeedii. marka laba qodob ay ahaday dadka dibadaha ku nool inay iska warqabaan laftooda iyo inay ku xiraadaan dadka wadanka gudihiisa joogay. waa tahay maadaama qurbo joogtiina shirka lagu soo qaatay oo qurbo joogti kala duwan lagu casuumay dadka inta badan ay ahaayeen dad qurbo jooga waxa laga yaabaa dad qaran Soomaaliya ka yimaadeen dadka maaragtay aqoonyahanka oo kale marka muhiimadda qurbo joogta oo kaliya ma ahayd mase guud ahaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda jooga in maaragtay wada shaqeyn ay yeeshaan oo dalkii dib u dhiskiisa laga wada shaqeeyo isfahan buuxa la wada gaaro ay muhiimaddu ahayd. muhiimaddu waxay ahaaday in la helo maamul ay ku midaysan yihiin dadka qurbo joogta ah iyadoo loo marayo markaas dadka gudaha ku nool iyo dadka dibadda ku nool habkay u wada shaqay lahaayeen. laakiin hadda shirka ujeedooyinka ugu muhiimsan wuxuu ahay in la helo dadka dibadda ku nool maamul ay ku midaysan yihiin. waxaa marka meesha lagu doortay laba maamul oo mid ay tahay
executive board iyo advisory board. waxay ka koobnaayeen marka 9 xubnood. marka waxaa jiri doona iyagana marka chapters oo matalayo dhammaan wadamada ay ka yimideen wafdiga qaybihiisa kala duwan. marka muhiimadu sidaas ay ahayd. wata daawadayaal intaan u soo laaban qaybaha maaragta ka qoseeya jaaliyada maadaama ay matalayeen jaaliyada Soomaalida dalkan Koonfur Afrika ku nool waxay la soo laabteen iyo kulamada jaaliyada la qaateen koor waxaan jeclaan lahaa bal markii ay la soo laabteen yimaadeen dalkii ku soo laabteen waxyaabihii shirka ka soo baxay maadaama ay u gudbinayeen bulshada kulamadii ay la qaateen qaybaha kala duwan ee jaaliyada iyo waxyaabaha ay isdhaafsadeen iyo inta badan maaragta halkii ay kulamada ku qaateen ayaan jeclaan lahaa markan inaan wax yar idinka daawasiyo isla markaana aan soo qaadano Cabdinaasir Axmed Sheekh Bashiir saxan sax oo asagu matalayay saxafiyiinta Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ururka Somali Journalists Association of South Africa oo marka magaciisa loo soo gaabiyay loogu yeero Sojasa ka socday isla markaana matalayay guud ahaan jaaliyada Soomaalida ee dalkan ku nool xubintii labaadna ahaa mar kulan arrimaha looga hadlayay oo uga qayb galay ama la qaatay ardada Soomaalida ee dalkan ku nool khudbadii uu jeediyay inaad daawataan marka hore kadibna aan isugu soo laabano qaybihii kale barnaamijka iyo waxyaabaha ka qoseeya Soomaalida dalkan ku nool Koonfur Afrika iyo waxyaabo ka faadi karaan daawasho wacan. Natiijada shirka kow kadib laba maalmood oo la kulansanaa waxaa si aqlabiyada la isku raacay dhowr arrimood oo asaasi ah. kow in la yeegleero dalad ay ku wada jiraan inta badan qurba joogta Soomaalida iyo urradooda. laba daladaasi in lagu magacaabo Somali Global Diaspora. saddex waxaa xubno ka noqon kara urur kasta iyo shakhsi kasta oo aaminsan in waddanka Soomaaliyeed ay guud waxay doonayaan ha ahaatee waxtar ku yeelan karo isla markaasina doonaya kala go'an tahay in hadafka laga miro dhaliyo iyadoo oo qof kasta lagu ixtiraamayo waxqabadka ururkiisa ama shakhsi ahaan taasi oo marka la isku biiriyo wax weyn noqon karta. afar in muddo 9 cisho ay haystaan golaha fulinta oo ay ku soo dejiyaan sharcigii qawaaniintii shuruudihii xubinnimada iyo weliba jadwalkii shaqada. qodobka shanaad oo isku raacay waxaa waaye in 3 waaxood oo waaweyn ee loo kala qaybiyo ururka oo kala ah waaxda dhaqanka hidaha iyo afka Soomaaliga, waaxda labaad oo ah wacyigelinta iyo doodista xuquuqda, waaxda saddexaad oo ah ganacsiga iyo maalgashiga. saddexda waax in ka koobnaado ururka waax kastana dadka aqoonteeda iyo kartideeda iyo waxqabadkeeda loo xilsaaray. hadaladii muhiimka ah ee laga jeediyay shirka hadallo badan oo qiimo leh laga jeediyay laakiin kulli ma soo wada sheegi karo laakiin mid iyo laba arrin micne gaar ah ii sameeyay baa sheegaya. Dr. Maryam Qaasim waxay tiri oo wasiir ka soo noqotay Soomaaliya dadka hadda shirka imaadana ka mid ahayd golaha marjican gashay waxay tiri xitaa waxaa la ogaaday in xayawaanka marka ay wada jir yihiin ay ka manaafacaad badan yihiin marka ay kala kala yihiin. waxay tusaale u soo qaadatay shimbiraha xilliga xagaaga ee qabowaha ka soo haada dalka Canada marka ay kala kala u socdaan in ay ka xawaara badan yihiin marka ay koox u socdaan. xawaaraha laga hadlayaa markay shimbirta duulayso markay keli tahay waxay ka xawaara badan tahay marka ay duulayaan. Maryam Qaasim waxay tusaale ahaan u soo qaadatay gabar Soomaaliyeed oo ceebla la yiraahdo mid ay dooniba ha ahaato ceeblo. waxay tiri ceeblo waxay go'aansatay in mujtamaca Soomaaliyeed ay wax ku soo biiriso waxa ay ku soo biirinaysana uu noqdo wax nool ilmo. waa waxa ugu wanaagsan ee dad lagu biirin karo. أنا قلب بحكي وحسن بحكي لكن وحنا ما بيركن لكن قبل الصوماليين حكوا عصتين وحنا كبير لكن طبعا إسبارة طبعا كإسبارة مد بمركي هيك قدرت تنكله أي عقبات قوات كبل عوريسة مد كم إذا إسباروينك وإن هشاء أليق عافمات والعقد كل بحيسة أي يختار ما أنت الصومالي وحيت الدلك قوات الدونك dumarka ay fool raacaan gabar soo waday hadiyad haday fool raacdo maxaa haysaa haday iyada ka badbaado oo ay ilmihiisi wanaagsan ku dhasho ilmahaasi aad bay u yartahay suurtagalnimada inuu sanadkiisa shanaad gaaro
sidaa darteed ilmaha ka yar 5 sano ee Soomaaliya ku dhinta kaalinta koowaad ee adduunka Soomaaliya kaga jirta. haddii marka dadka qurbo joogta ay arrintaa tashi ka samaystaan waxyaabaha rug caafimaad oo hooyada iyo dhallaanka lagu fulin karaa aad bay u yartaa. wadajirkeena 2 milyan oo qof oo qurbaha ku nool haddii min $1 ay bixiyaan $1 hadday bixiyaan arrintaa waa la badbaadin karaa. mustaqbalkeennana meeshaas ku jira mustaqbalka loo raadinayna ma garanaya aniga. shirka kaalin mugla waxaa ku lahaa ardada Soomaaliyeed ee ka deeqda waxbarasho ka heshay Turkiga oo fududeynay 3 qodob oo asaasi ah ayaa ka quseeya shirkaasi ardada. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Turkiga Emrullah Isla waxa uu ballan qaaday in dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ardada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool la siin doono fursado waxbarasho oo deeq waxbarasho ah. qodobka koowaad ee ka quseeya kaas weyn. kan labaad ee ka quseeya wuxuu yahay in mid ka mid ah shirka qaraaradii la gaaray uu ka mid yahay waxa la yidhahdo student exchange, in ardada la isweydaarsado oo jaamacadaha xiriirada fiican lala leeyahay ama adduunka meelihiisa ku yaala laga dhaadhiciyo in arda Soomaaliyeed oo meeshaa dhigata ay imaan karto wadamada kale oo sidaa darteed ardada la isweydaarinayo kuwa inta jooga ay meel kale tegi karaan. haddii arrintaa hirgasho waa wax laga faa'iidaysan karo oo idin furan. qodobka saddexaad ee aadka muhiimka u ah ee idinka quseeya waxaa waaye in caqligii Soomaaliya uu soo haajiray. sidaa darteed la raba caqliga in lagu celiyo. sidee lagu celin karaa? mid ka mid ah ardada waa marka xilliyada fasaxyada oo Soomaaliya tagaan haddii 3 bilood uu haysto haddii 2 bilood uu haysto in loo abaabulo kulamo iyo seminaaro iyo meelo oo casharo dadka ka siin karo si uu bulshadiisii dalkiisii wax ugu celiyo. intaasaan kusoo koobaya hadalkayga. aad baan u mahadsantihiin. aad buu mahadsan yahay. kaasi wuxuu Cabdinaasir Axmed Sheekh Bashiir saxan soxo oo ka qayb galayay kulan ardada Soomaalida ee dalkan Koonfur Afrika ku nool ay yeelanayeen isla markaana u gudbinayay waxyaabaha maaragta oo shirka ay kala soo kulmeen Istanbul Global Somali Diaspora Community. markaan usoo laabano dhinaca South Africa dabcan sida aad arkayseen waxaa jiray kulamo aad la qaadateen qaybaha kala duwan ee jaaliyadda. waxaad u gudbiseen fikradii halkaasi ka yimid iyo waxyaabaha soo dhaafsateen maadaama ay ayagu matalayseen. ugu horeyn kulamadii aad la qaadateen mar haddaan aragnay maxaa idinkaga soo baxa kulamadii aad la qaadateen maxaase kala kulanteen jaaliyadii aad matalayseen? xaqiiqatan waxaan dhihi karaa waxaa nooga soo baxay wixii aan filaynay. isla markii aan kasoo laabanay shirka 23 bisha waxaan shir la qaadanay qaybaha kala duwan ee jaaliyadda. waxaan usoo bandhignay marka wix aan la soo kulanay maadaama aan mathalayna iyaga oo shirka aan ka qaybgalaynay aysan ahaynin inaan xambaarsannahay fikirkayna laakiin aan xambaarsanayn jaaliyadda ku nool Koonfur Afrika ee Soomaaliyeed. marka aad iyo aad ay usoo dhaweeyeen wixii talooyin ana waxaan rajaynaynaa maadaama loo baahan yahay jabtaris oon ka mid nahay dadkii ka qaybgalayay shirkaas inay wixii marka contribution ah oo fikir ah ay ka qayb qaataan. waxaa xiga asigana shir kaleentood oo ardayda Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika iyagana aan la qaadanay. marka labadii qayboodba aad ay usoo dhaweeyeen waanan usoo bandhignay wixii aan la soo kulanay. waa dareensan tahay maanta Soomaaliya dhibkii soo dabada dheeraaday oo hayay inay u bisishahay inay ka baxdo. marka fikirkaas khayr Allah siin leeyahay walaalihii soo jeediyay wuxuu ahay fikir la soo daahay laakiin awoodda alle oo aan la kulannana aad ay usoo dhaweysay waqtigan uu ku soo aaday qof kasta. waa tahay marka qaybaha bulshada oo aad jaaniska siiseen inta badan ama aad la kulmayseen oo kale qaybay u badnaayeen dhinaciisa ka eegteen? xaqiiqatan qaybaha aan juhdiga badan ku bixina waxay ahaaday aqoon-yahanada, culumada, odayaasha inta la dhihi karo mujtamac uu ka kooban yahay. maxaa yeelay qof kastaba kaalima uga aadan. waa dareensan tahay maanta Soomaaliya qof kasta oo qurbaha ku nool wadankii hooyo ay caawisaa. maadaama marka wadankii la caawiyo oo qof kastaba shakhsiyan shakhsi loo caawiyo in si jamaca loo caawiyo wadankii ayaan ka codsanaynay. aad iyo aad ayna usoo dhaweeyeen waana rajaynaynaa waqtiyada soo socdo in waxqabadkii loo gudbi doono. waa tahay mar haddii aad jaaliyadda South Africa aad matalayseen dalkan waxaa ka jira dhibaatooyin fara badan. halkan waxaa ku kulmayay jaaliyado fara badan.
intoo kale waxaa ka jira safaarad turkiga uu ku leeyahay dalkan koonfur africa marka xagga tagteen oo kale ma isku dayda in xiriiro la sameysaan si loo ambaqaado howlihii maaragta laydiin soo igmada maadaama maaragta aada xubin ka aheedeen guddigii la doortay iyo shirkii inta ka qayb galayba sida aada la socotaba safaaradda turkiga ay ku leedahay koonfur africa iyo jaaliyadda soomaaliyeed cilaaqaad fiican ayaa ka dhexeeyo sida aada in badanba ka qayb qaadatay waxaan isugu xirannahay sidii laba nation oo diris ah marka walaalaha turkiga aada iyo aad ay u danaynayaan maanta soomaaliya marxaladda ay ku jirto inay ka baxdo in badan waxyaabo badan oo caqabadooyin hoon la kulanaba talooyin ay iyaga aan ka helnay ayaan isleenahay sababay u tahay inaan horumar aan sameynay marka dhankaas hadda dowladda turkiga hadda waqti badan oon ku sheekaysano ma aanan helin laakiin safaaradda ay ku leedahay koonfur africa aada iyo aadaan u wada shaqeynaa gaar ahaan qunsulka capton jooga waa tahay kulamadii aada jaaliyadda la qaadateen meelo kala duwan ayay ka dhaceen waxaa laga yaabaa in su-aalo la idinku weydiiyey oo maaragta dadku ay fikir badan kaysan maadaama idinku matalayseen in su-aal idinka weydiinayo kale haddii ay jireen su-aalo idin weydiiyo kale waxyaabaha inta badan dadku ay fikir ka rabeen u baahnaayeen in wax ka ogaadaan maxaa ugu badnaa waxaan xusi karaa dadka ka qaybgalayaasha ah ee shirkaas ka qayb galay inay ka aaminsan yihiin soomaalida koonfur africa ku nool inay tahay tiro yar oo tirada hadda qiyaasta lagu tilmaamo aysan dhammaynin marka waxaan u soo bandhignay dadka koonfur africa ku nool ee soomaaliyeed inay yihiin dad xoogsato ah oo shaqaysto oo qof kastaba ay iyadu nafsadeeda ay dabirto weliba ay yihiin dadka meesha ku nool hadda dad dhalinyaro ah oo u dhexeeya 25 ilaa 30 badankooda saas daraadeed aad iyo aad ay ugu riyaaqeen wadamo badan oo markaas aaminsanay inay hadda tirada ugu badan ay yihiin ayaa garwaaqsaday in dadka South Africa ku nool ay yihiin dad xaqiiqatan u baahan in waqti badan la siiyo si ay uga qayb qaataan qurbo joogta waa tahay in jaaliyadaha kala duwan ee kasoo qayb galay maadaama shirku muhiimad uu lahaa isleedahay way ka faa'iideysan karaan fursadaha maaragta kasoo baxay halkaas si loo meel mariyo ama looga faa'iideysto jaanisada maaragta dowladda turkiga soo bandhigto kale ama kaalinta ay hadda ay rabto kale in bulshadu ay siiso waa laga faa'iideysan karaa isleedahay aad iyo aad waan aaminsanahay laakiin waxay ku xiran tahay Soomaaliya inay iyadu isku daydo inay cagaheeda ku istaagto marka anu ka faa'iideysanayo fursadan waxaan leeyahay walaalaha turkiga wayna caawiyeen laakiin qofku markay ku caawiso adiga waxa laga rabaa inaad wax qabsato aan dhahay marka waxaan ka codsanayaa walaalaha Soomaaliyeed ee ku nool koonfur Africa iyo kuwa ku nool adduunka dacaladiisaba maanta Soomaaliya dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay maskaxdooda iyo maalkooda ay mideeyaan waan dareenay faa'iido darrada ay leedahay kala taga marka aanu fursadan ka faa'iideysanayo waxaan leeyahay walaalaha Soomaaliyeed waa inaan isku daynaa marka inaan anagu aan marka wax qabsano oo ay tahay hadda waqtiga ku haboonay ee Soomaaliya maskaxdeeda ay ka shaqaysay laheeday waayo hadda Soomaalida ku nool dibadda waxa lagu tilmaamaa 3 milyan tiro ka sii badan 3 milyan oo qofood oo dibadda ku nool haddii isku dayaan inay wadankoodii marxalada uu ku jiro uu ka baxo waa fududahay in macnaha ay ku guuleystaan hadafkooda walaalaha gudaha ku nool iyagana waxaan leeyahay haddii aanan anagu aanan isu yeelin qiimo ma yeelanayno saas daraadeed waan aaminsanahay in wax badan ay qabsoomi karaan haddii la wada shaqeeyo waxaan ognahay hadda ka hor dhowr jeer qalalaasa wadankan ka dhacay walaala Soomaaliyeed ee ku nool dibadaha inay banaanbaxay ay sameeyeen ay safaaradaha ay ku leedahay koonfur Africa adduunka dacaladiisa ay tageen ay gudad ka sameeyeen wax badanna ay hadda pressureki ay iyagu saareen oo wax badan uu iska bedelay wadankan marka haddii aan isku wada dayno marka dadka ku nool qurumaha kala duwan ee Soomaaliyeed ee danta ku kaliftay inay dibadaha ku noolaadaan way sahlanaanaysaa haddii ay isku dayaan inay wax qabsadaan inay wadanka aadaan maanta qof kasta oo Soomaaliyeed oo dibadda u carartay daruufta ku kaliftay maahna qof ku faraxsan ma jirto xataa caruurtii ku dhashay waxyaaba hadda aan xusi karo waxa kamid ah shirka waxa ka qayb qaadanayay caruur Soomaaliyeed ee dibadda ku dhalatay maantana dareensan inay macnaha jeclaan lahaayeen inay wadankoodi tagaan dadkan afkaaraha la wadaagay waxa kamid ahayd inan yar oo wali qaan gaarin ee dhahaydo maanta aniga waxaan ku dhashay Ingiriiska tusaale ahaan laakiin qofku marka ii jeedo
waxaa la yaqaanaa qof qaxootiya Soomaaliyeed layma aaminsano inaan ahay qof British ah laakiin waxaa laga aaminsan yahay inaan ahay qof Soomaaliyeed saas daraadeed waxaan jeclaan lahay inaan wadankayga hooyo ku laabto wixii aan wadankan ku bartay aan wadankii hooyo ku laabto macnaha dadka u faa'iideeyo marka waa fursad qaali ah marka waxaan ka codsanayaa Soomaalida ay daawanaydo amba ay dhageysanayso inaysan baardareen jaaniskan oo wada istaagno dadka fikirkan iska lahay macnaha hal abuurka lahay oo 10 qofood ka kooban waa fikir fiican ayaa Ilaahay waafajiyay laakiin waxa loo baahan yahay marka inta kaleentood marka oo hadda la jaan qaaday inay isku daydo marka in fikirkaas uu shaqeeyo haddii yihiin dadka gudaha ku nool iyo haddii yihiin dadka dibadda ku nool waa la dareemi karaa maanta maamul ay leeyihiin dadka dibadaha ku nool waa markii ugu horeeyay 23 sano la soo dhaafay oo mushkiladu socotay wali inta aan ogahay ma aysan dhicin in tira intaas la eg la isu keeno haddii la isu keeno xataa aan la dhihin saas aan yeelaynaa laakiin la dhaho maxaan samaysanaa macnaha maamul marka lagu midaysan yahay meeshii lagu dhisay anaga hadda member kama ahi laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay fikir aad u wanaagsan waqtigii la rabayna kasoo dib dhacay laakiin u baahan hadda in mirahaas ka soo baxay laga faa'iideysto ugu dambeyntii ma isleedahay awoodda ku jirta qurba joogta Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan dunida dacaladeeda waa looga faa'iideysan karaa ama way taagan tahay xilligii looga faa'iideysan lahaa in kaalmo dibadeed ama kaalmo caalami laga maarmo isla markaana ayagu ay bedelaan meelmihii kaalmaha caalamiga lama heli lahaa oo ay dib u dhiska dalka ayagu qayb ka qaataan aad iyo aad waan aaminsanahay in laga maarmi karo inaan wadamada shisheeye aan macnaha gacmaha u taagano waayo waxaan ognahay dadka gudaha ku nool dhaqaalaha ugu badan hadda Soomaaliya ay ku tiirsan tahay waxay ka yimaadaan dadka qurba joogta ah saas daraadeed haddii marka hadda la helo tala midaysan oo ku dhisan in aan wax qabsano ururkaas maahan urur siyaasi ah laakiin waa urur u istaagay inuu mushkilaadka Soomaalida dunida ku kala haysto oo macnaha awoodiisa in miday oo wax ka qabto haday ahaa lahayd dhanka sharciyada iyo haday ahaa lahaydba dhinaca bini aadanimada waan ognahay wadanka in badan waxa ka dhaco abaara badan Soomaaliya waxa lagu yaqaanaa qofka Soomaaliga marka la sifeynayo inay tahay qof baahan burcad badeed adiga waxyaabo aan wanaagsaneyn ku sifaysan waana mahadsantahay watahay aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa Yuusuf Cumar Axmed gudoomiyaha Safe Somali Community oo aan kaga hadlaynay barnaamijkan caawa ah Global Somali Diaspora oo bishiina soo 22 June ilaa 22 June ka socday magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga aad u mahadsan yahay Yuusuf barnaamijka inta ayaan ku soo gabagabeyn doonaa waxaa soo saaray isla markaana tabinay anigoo Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe dhega kaamirada wuxuu ahaa Geelle Axmed Siyaad aad baad u mahadsantahay inta barnaamij ka lamid kulmi doono waxaan kaga tageynaa dhamaanteena isku duuban sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh ramadaanul kariim